أصحابي ميل كستا جوجتان وايدين وذا السلام يا سلام كدب أصحابي قف والبا مسلم إلهي هورتا ومهد عليو قفكي مسلم إلهي كدغا وا قف ديباني الدنيا آخرة كليا waxaa laga rabaa kaliya wax walbo Ilaahay uusan raali ka ahayn kaliya inaad ka fogaatid oo wax walbo Ilaahay raali ka yahana aad u dhawaatid alxamdulillah gabadhani waxay ahayd qof gaal ah oo hadda diinta islaamka ku soo biirayso waatana hadda shahaadinka loo qabanaya ninkan ayaa hadda sheekhan ayaa shahaadinka u qabanayo waatana iyadoo raali ah iyadoo maaragtay ku faraxsan ku qanacsan ayaa shahaadinka loo qabanaya hadda waatana shahaadinka ayuu u wadaa waata shahaadinka qaadanaysa ay qeyranaysa waa nimcay ilaahi alxamdulillah thumma alxamdulillah qof walba waa inuu ilaahay ku mahadiyaa mar walba uu soo kaca isaga oo muslim ka dhigay taas waa inuu ilaahay u mahdiyaa gabadhani hadda ayay waxa loo aruurinayaa dhaqaale ayaa halkan loogu aruurinayaa diinta islaamka ayaa lagu soo dhaweynaya aad bay ugu qanacsan tahay ku faraxsan tahay waa u jeedaa si u nuurayso si u iftiimayso sida ay maaragtay ay ugu soo bixayso walacad dharka quruxda badan xijaabka si ay ugu soo bixayso waa u jeedaan marka waxay la ilmeynaysaa hadda markay ku soo biirtay oo maaragtay shahaadinka loo qiray oo ay maaragtay alxamdulillah rabbil alamin dadkii dhan ay ku farxeen ay aad iyo aad maaragtay dad ujeedaan lacag baa loo aruurin lacag baa la siinayaa heer wixii gaaraysan ilinta cishan wayso ilinta ka timaada aad meeshana waxa loogu aruurinaa dhaqaale aad u fara badan marka waa maaragtay diinta islaamka waa diin aad u nimco badan alxamdulillah rabbil alamin qof walba muslim horta ilaahay ugu mahadiyo gabadhii waatana gaasha qofta hore gaalusha u ahayd hadda laakiin magaca laga bedelay waa saacadaas ka bilowday waxay noqotay qof muslim ah oo diinta islaamka ku soo biirtay oo ku qanacsan ku faraxsan ma ku tala jirta adi ahaan qofka hadii dhageysanayo adi ahaan ku tala jirta inaad ku soo biirso qof kale qof gaal ah inaad ku soo biirso diinta islaamka ya alxamdulillah qofkaas waxa ogaata ajir wax walba oo sameeyay ajir aad ku leedahay wax walba amal walba oo sameeyay waa ujeeda gabdhihii dhana u soo bada kaceen gabdhiyaha ta ka ilmeysiisa qaarkood gabadhan say u ilmeynaysa si jeedo waa ujeeda waxa waa loo marxabeynaya aad baa u faraxsan tahay aad bay way u ilmeynaysa way qash waa ujeedaan sida loogu marxabeeyana aad diinta loogu soo dhaweeyna loogu wada faraxsan yahay ilaahay hana hanuuniya ilaahay maaragtay hanaga dhigo kubi diintooda ku dhignaada